السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa cashada waa casho aada u fudud. cashadana aada iyo aada casho u fudud weeye. Instapotka ayaan isticmaalay hadda sidaad arkaysaan. Sotey ayaan daaray waa on high. hadda bas saliid yar ay ugu jirto digsigan. Instapotka ayaan isticmaalayaa caawa. basal iyo halkan waxaan ku haystaa tuun aan slice u jarjaray. inaan qaleeyo ayaan u baahanahay yar aan qaleynayaa basasha iyo tuunta ayaa sugaya inay qaleysanto oo sidii maaragtay uu leeyahay meel lagu qaleyn karo. halkan waxaan ku haystaa xawaaji keeri, waxaa jeclaha xawaaji keeri waaye, iyo filfil kaasna filfil waaye, black pepper oo cusbo hal qaado, iyo heel iyo salmon stick qolfe iyo heel labada xabo camal adiga. iyo bariiskana karinayaa. bariiska waxaa ku qornayd bacdiisa jasmine rice, basmatiga camal waaye laakiin si uu ka duwan yahay dhadhanka iyo a little bit uu ka duwan yahay. runtii aad ay u fududahay. caawa cashada waxaa waaye bariiskan aan dalacaayo iyo chicken qudaar lagu kariyey. aad u anfacay digsigan aad ku anfacaya kulay hadii aad gadato. waa hawl fududeys kama caajisina cunto karisid. hadda filfisha ayaan ku daray. filfisha ayaan ku darayaa iyo qolfiyo heelkii. waxaan kaloo ku darayaa yaro cusbadii hal qaado cusbo leen isticmaalayaa, iyo xawaaji keeri for the color. wax yar aan isdhex gelinayaa. almost way dhamaatay, way iga qaleysmaysaa si fiican. inay waxaan rabaa guduudto basasha maadaama bariiska aan ku daraayo. qudaarta kalena xoogaa inay kusoo kululaato isdhexgalan seasoningka iyo waxaan hadda isticmaalaya waa soteyga. soteyga mar walba waad ku waxaa lagu shiili karaa waa runtii bariis iyo wax walba ku karin kartaa. baasta ani ku kariya xataa baasto, bariis, oatmeal, hilib waxaad ku karin karin malaay wax walba waa lagu karin karaa. spacekiina wuu leeyahay ilaa 8 kaab camal u qaadaa. hadda waa inaad damisid marka soteyga cancel ayaan leeyahay off waaye hadda. waa off sababtoo inay joojisid waaye kii hore aad isticmaalaysay soteyga. bariiskii oo iisoo dhaqan ayaan ku darsaday. insha allah haddana waxaan ku darayaa biyo ayaan soo kululeystay. inaa kululeysid uma baahna haddaa Instapotka isticmaalaysid, laakiin waa iska sii diyaarsaday aniga. biyaan ku shubayaa hadeertaan. kolley bariiska qiyaastiisa reerkaada qiyaastiisa adiga ayaa taqaanid. qiyaasta waad adaa qiyaasanayo. biyahani waa uun intii kasoo inay kasoo maraan loo baahan yahay, ma ahan inaad ama ku badiso ama ku yareyso. waxaa loo baahan inay ka koreeyaan bariiska biyaha qarinayaan micnaha bariiska. qiyaastana adiga taqaanida cidaad u karinaysid.
oo cabir kuu sheegi maayo insha allah. daboolka ayaan saaray oo marka dhinacan ayuu u xirmaa. open close ayaa ku qoran, laba arrow waaye, midda dhinaca u jeedo dhinaca hadda aan u riixay ayuu u xirmayaa. brusher waxaan I choose brusher cook. waxaan gelinayaa 10 daqiiqo insha allah. sorry 8 daqiiqo ayaan ku karinayaa bariskan. 8 daqiiqo lama joogayo, waan ka tagay markii 8 daqiiqo wakaas waa isaga tagayaa. waxaan soo noqonayaa markii uu dhameeyo. hadda 1 daqiiqo ayaa u hartay. soo laabtay. wuu dhameeyay hadda. waa inaan sugo another 10 minutes, ugu yaraan 10 minutes inaan sugo waaye ilaa uu qaboobo. hore haddaan ka furo brusherka zaa'ida hadhowna waxaa laga yaabaa inay dhib kaaga imaado oo cuntada ay kugu soo qaraxdo, macnaha oo kor cuntada iyo kulul inay kugu soo, hadaa hore ka furtid waa khatarteed ay leedahay. waa sugayaa ilaa 10 daqiiqo markay kasoo wareegtay ayaan kusoo noqonayaa. hadda 12 daqiiqo ayaa kasoo wareegtay. hadda ayaan kusoo noqday. tanahayga ayaan iska qabsaday oo waan ka maqnaa. horey kama furaayay, brusherkii baa weli ku jira. anigoo weli sugay 13 daqiiqo. waa inaad weli sugto brusherka intuu ka baxo. brusherka ayaan hadda ka bixiyay. waa ujeedin qiiqa intuu la egyahay ku jiray. geedkan brusherka ayuu wax ku kariyaa. markii uu dhamaado waan furay. markuu dhamaado ayaan furayaa. uu ka baxay qiiqii oo dhan. maasha allah bariiska saan ugu soo baxay lagama sheekeyn karo. carafta digsigana waxba ma qabsanin, oo waxyar ma qabsan. digsiga waan soo dhaqday. bariiskii baal baan ku gadistay. isla digsiga ayaan isticmaalayaa inaan chicken ku kariyo qudaarta. satee baan taabtay, aan doortay. waan rabaa inaan ku qaleeyo qudaarta. basal iyo toontii iyo saliid ayaa iigu jirta. xoogaa yar ayaan qaleynayaa oo waxaa inay isdhexgasho ayaan u baahanahay, oo micnaha inay qaleysanto oo basasha xoogaa ay ku karsanto ayaa fiican mar walba si carafta aad u hesho. waxaas dry oregano haystaa iyo parsley. waxaan haystaa xawaash curry, canned tomatoes iyo paprika. kaasna waa paprika. waxaan halkaan ku haystaa celery af Soomaali wax lagu dhaho ma aqaano. bas iyo celery iyo waxa waaye barbarooniga oo guduudka. halkaan waxa ay taalo ayadana baradho dhaqay si fiican u nadiifiyay. saan aan jarjartay ay taalo diyaariya. chicken ayaan ku la karinayaa. hal mar ayaan macna iskula wada daraa wax walba. chicken aan karinayo intaan waaye waa chicken breast oo boneless ah. intaanan qudaarta ku darin basashii iyo toontii oo ay qaleysantay ayaa iigu jira instabotka. cusbo yar ayaan ku darayaa. waxyaraan isdhex gelinaya cusbadii iyo basashii iyo toontii oo si fiican iigu qaleysantay. waxaan rabaa chicken inaan ku daro intaanan qudaarta ku darin inaan xoogaa guduudiyaan rabaa chicken. labada dhinac aan ka guduudiyo. marka chicken ku daraya hadda waxay yeelanaysaa more flavor marka aad ku dirtid. markaa guduudisid more flavor kaaga soo baxaayo oo dhadhankeeda si fiican oo macnaha
uu ka bacay. Hadda waxaan ku darsanayaa seasoningkii, waxaan ku daray xawaash curry, dry oregano, waxaan ku darsanayaa paprika oo basbaas guduud oo shiidan, waxaan ku darsanayaa parsley-gii. Markaa ku daro parsley-ga waa isdhex geliyay wataas chickentii oo leh macnaha seasoningkeedii iyo wixii oo dhan oo labada dhinacna si fiican ugu gududatay. Hadda qudaarta ayaan ku darsanayaa, baradhadii ayaan ku daray, waxaan ku daray celery-gii iyo barbaroonigii guduudna ayaan ku daray. Si fiican ayaan isku dhex gelinayaa si aysan salka u qabsanin. Hadda waxaan ku darayaa diced tomatoes, waa canned tomatoes oo waa yaanyada gasaca oo hal xabo ayaan ku darsaday. Si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. Aad ay u fududahay waana caafimaad miiran. Hadda koob biyaan ku darayaa. Mar walba inaad biyo ku darto waaye, sababtoo ah haddii barasharka isticmaalayso waa inaad biyo ku darto ugu yaraan half a cup, haddii kale wuu kaa gubanayaa dabka. Marka mar walba inaad biyo ku dartid waaye. Sidaan ayaan isku dhex gelinayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. maasha Allah, casho fiican ka soo baxayso. Hadda daboolka ayaan saarayaa. daboolka ayaa loo dhuujinayaa. Waqtiga dhinacaas ayuu u xirmaa oo waxaa u jiidaysa falaarta dhinaca close ay ku qoran tahay. Pressure ayaa taabtay. Waxaan gelinayaa timekii 10 minutes ayaan insha Allah gelinayaa on high waaye. Hadda danahayga aan ka qabsanayaa oo waxaan kusoo noqonayaa markii 10 daqiiqo ay dhamaato oo waqtigii ay dhameysato ayaan usoo noqonayaa insha Allah oona sii sugo 10 daqiiqo kale. Hadda 10 daqiiqo iyo 24 daqiiqo kale aan ka maqnaa weli saasay tahay oo 24 daqiiqo asagoo dansanaa. weli inaad barasharka ka bixisid waa hore kama furi kartid, barasharka inaad ka bixisid. Marka hadda waan furay, saan ay kusoo baxday carafta iyo macaanka. Casho aan caadi ahayn waa caafimaadna leh. waatana waxaan kusoo shubay ku riday serving bowl-kii aan ku cashada meesha laga qaadan lahaa, weelkii aan kusoo shubay cashada. Marka in yaroo kabsar caleena korka aan ka saaray. Marka cashadan casho laga sheekeyn kara ma ahan, aad iyo aad casho u fudud, caafimaad leh, aad iyo aadna aan u jecelnahay waaye. Runtii waa laga helay caawa, idinkana tijaabiya. waa casho aan caadi ahayn. Haddii aad haysataan instant pot iyo haddii aad haysaninba runtii waa la karin karaa. sababtoo ah sidii stepskii digsigaba waa lagu sameyn karaa caadiga ah, dabka caadiga ah. waatana cashadeeni saana kusoo baxday. aad iyo aadna way u fududahay runtii, waqti badan igama qaadanin. waataasaa cashada lagama sheekeyn karo maasha Allah. isku daya. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan oo idin cajabiyey. haddii aad ka hesheen la share gareeya walaalaha kale insha Allah. haddii aad su'aal qabtaan ku saabsan Instapot-ka
su-aal ah sida loo isticmaalo ama cuntooyinka aan kariyay commentiga noogu dhaafa. Thank you for watching.